قبيل صومالي maaha waxaa lagu leeyahay reer hebel asaasa reer hebel inta ka dhacay madaxweynaha wuxuu ku sheekayaa maalin walba reer hebel iska cilina qabiil hebel la garba qabana qabiil hebel la garba duuba qabiil hebel raggan mucaaradka ay u shaqeeyaan reer hebel is hayna ayaga isma hayno waxaas wasiiradiisa iyo kuwa maaragtay cayaanka baraha bulshada anaga awal xilligii hore ma ogtahay dhalinyaro oo social media ku jirta jireen hadda wasiiradii CBB noqday dawladda xasha ee meelaha la taagay ninkaas wuxuu ku leeyahay doorasho qof cod u socda maalin kasta wuxuu la soo istaagaa madaxweynaha dhulboobka jooji doorasho qof cod madaxweynaha dastuurka aad fujinaysa jooji doorasho qof cod wax kasta aad ku qabsato wuxuu ku leeyahay doorasho qof cod waa miiska uu rabo inuu naga hoos galo doorashada qof cod kaana taa waaye ta gudoomiyaha baarlamaanka asoo gudoomiyaha baarlamaanka inuu madaxweyne noqon la sii og yahay waa doorashada qof cod maxaa waaye midda kombiyuutarka asoo ku haysto waaye doorasho qof cod maxaa waaye guddiga doorashada asagoo wuxuu u sheegay inay sheegaan waaye marka waxaan u baahanahay waxaa la joogaa sidii ninkii dhalinyarada meeshan Cabdullaahi uu ka sheegay dhalinyaroy qasam maaha annaga kali inaa wax naga sugtaan nimanka 13 ah ee kaligood guri ku shiray ayagoo dhalinyaro ah ee go'aan ku gaaray gumaysta inay iska qaadaan quwad shisheeye ah dhalinyaro ahaayeen sax maaha marka maalin kasta inaad dad waaweyn ay sugtaan awooddeedii ay ku jirtaa waxayna ku jirtaa tamartiina waqtigiina resource yarka oo haysataan iyo maaragtay xirfadiina inaa midaysaan ay ku jirtaa oo dulmiga iyo heeriyada iyo cadaalad darrada iska qaadaan annaga diyaar inaan horseedno waxaan rabnaa idinka xuquuqdiina iyo xuquuqda ilmaha xashaq inay sanaadaan taasoo u taaganahay annaga idinka inaa fursadaha heshaan aan aaminsanahay siday fursadaha u helayaan kuwa asaga ku dhow inaa fursadaha u heshaan aan aaminsanahay dalkan waxaan aaminsanahay Soomaaliyeed inuu yahay dal la wada leeyahay dadka Soomaaliyeed ka dhaxeeya munaasabada maanta waxa iska dhalinyarada waa 15 May waa maalin ku astaysan halgan geesinimo nafur iyo midnimo dhalinyaradaas laakiin 15 May waxay u dagaalameen inay helaan xorriyad waxay ka dagaalameen gumaysti ama gumaysi ka dagaalameen waxay u dagaalameen midnimo in la helo waxay ka dagaalameen dadku inay qabiil u qaybsanaadaan waxay u dagaalameen in shanta Soomaali ay midowdo dawlad casri ah oo nidaamka casriga ku dhisan oo xorriyadda iyo dimuqraadiyadda sinaanta iyo cadaaladana in la helay u dagaalameen dhalinyarada maanta joogtaa maxay u dagaalamayaan ma gumaysi iska qaadaysaan maya maxaa iska qaadaysaan laakiin kaligi talis maxaa u diriraysaan in cadaalad iyo sinaan iyo xuquuq aad heshaan u dagaalamaysaan intaas markaa munaasabada uga gudbo waxaan rabaa inaan dabagal hadalkii Cabdullaahi Sanbalooshi oo ahaa nabadda waa laba nooc dadku nabadna waxay ku timaadaa daal in la daalo peace of exhaustion la yiraahdaa ama exhausted peace waaye dadku markay diriraan inta daalaan isu ag dhacaan kala tagaan nabaddaas waxay ku timaadaa daal annaga nabadda aan haysano markii laga soo tagay 10 sano dagaalkii sokeeye xilligii oo dawlad dhiska bilowday oo la sheegay hadda hogaamiye kooxeed iyo maxkamado iyo al-shabaab iyo Etoobiyaan isbursigaas oo dhan markii laga soo tago hadda maanta aan joogno nabadda aan haysano waxaan ku haysanaa waa daalay ku joogtaa waa la daalay dadka daalay nabad perpetual peace wax la yiraahdo nabad ku dhisan dawladnimo iyo cadaalad iyo sinaan iyo sharci anaga ma haysano wali waana ka laba nolol marka dadku markay daalaan iyo markay dawlad iyo sharci iyo sinaan nabadda ku helaan dagaaladii sokeeye waa isdilnay waa kala aamin baxna anaga dhexdeena qabiil ahaan deegaanaan kala tagnay maamulaan kala samaysanay qaar waxay dhaheen waa in ka baxnayba dawladdiina waa ka aamin baxnay dawladdii Soomaaliyeedna waa laga aamin baxay
wax kasta oo dawlad la xiriira dadku way ka cabsadaan booliiska waa laga cabsadaa waa brutal maxkamadaha garsoor cadaalad looguma tago askariga waa laga baqaa wax kasta oo dawlad la xiriiro waa laga cabsadaa sababtoo dawladda kalsooni laguma qabo annaga marka nabadda aan raadinayna golaha mustaqbalka hadaan nahay waa nabad ku dhisan sharciyad cadaalad sarreyn sharci sinaan xuquuqda muwaadinka oo la ixtiraamo dadka hadda magaaladan jooga oo sida la sheegay dhahaya nabadaan helna sax waaye laakiin nabadda haddaadan garanaysaa ku heshay ma xajisan kartid haddaad iska aragto nabad oo aadan garanaynin siday ku timid ma xaji kartid nabadaan haysano waa nabad daal ku timid waaye magaaladan 90kii markii la saaray dawladdii dhexe ee rajiimka ka talinayay dadkii jooga waa isdirreen waqooyi koonfur isku dirreen 4 bilood dagaalamayeen ayadoona wax heshiisa dhicina dadku inta daaleen kala tageen wax nabadana ma dhicin sidii ugu jirnay walooraan haystay maxkamadihii ay yimid waloorkii bixiyeen maxkamadihii Etoobiyana bixiyay saasaan ku jirnay waa la isbixinay uu kaliya laakiin nabad heshiis lagu yahay oo saldhig leh oo sharci leh oo dastuur leh oo maxkamado leh oo cadaalad leh oo nidaam leh annaga wali ma helin tiyaan u dagaalamayna taas waa hadalka Cabdullaahi oo sax yahay ninkii wixii lagu heshiiyay diido waa in la iska qabtaa marka ninka kooxda iska qabanaysa iyo cidda iska qabanaysaana waa cidda nabadda rabta dadka qalada loo fahamsiiyey ninka wixii lagu heshiiyey tusaale waxaan ku heshiinay 4 sano mar la doorto waxaan ku heshiinay nidaamkeena federaal yahay waxaan ku heshiinay systemkeena parliamentary yahay waxaan ku heshiinay awood in 4.5 u qaybsano ninkii waxaas oo dhan diida ninka nabadda diidan waa kaas nabad diidkaas ah kaas waa midkii in la iska qabtaan rabo haddii la qabo marka maxaa dhacaya wixii aan ku heshiisay oo diidaya nabadii daalka ku timid ayaa meesha ka baxaysa say uga baxaysa wixii nabad darrada keeno oo qofkii u noqonaya maanta maxaan ku xasuusanaa xasan sheekh maxamuud madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday ama madaxweynihii hore maxaan ku xasuusanaa cagaf iyo barakicin maxaan ku xasuusanaa qabri ifaag maxaan ku xasuusanaa askari Soomaaliyeed iska dhiibay xadka Kenya maxaan ku xasuusanaa dalkoo laba dastuur leh maxaan ku xasuusanaa 3 dawlad goboleed mandate lahayn oo sharci madaxweyne dhaafa asagii xilkii ka dhamaaday dalkoo heshiis doorasho ka jirin oo xasuun ay jirto ee hubintaan siyaasadeed maxaan kaloo ku xasuusanaa Soomaaliland oo Israa'iil ictiraaftay saas maaha maxaan kaloo ku xasuusanaa in sheeg waa badan yihiin dhalinyarada xirxiran maxaan kaloo ku xasuusanaa tahriib inuu abay badda Soomaaliyeed geey maxaa kale madaxweyne magacaaban oo la og yahay maxaa kale 10,000 oo dhalinyaro Soomaaliyeed oo dagaalkii ku dhimatay lacag Soomaali maamadii ku sawirnada gurigeedii dhacay maxaa kaloo ku xasuustaa gabadhii guriga iyadoo duusan gurigeedana dib iskool ka soo noqotay war haddii la tiri xisaab ma leh waxa kaloo lagu xasuustaa idin sheegaa marka inay ilmihiisa ka xuquuq badan yihiin ilmaha kale inuu sameeyo mukulaale cayilan oo saaxiibadiisa naaxiyo oo lacag ka buuxiyey inuu yahay madaxweynihii account-ka lacagtiisa toos ugu dhacayso ma yahay mise maaha ballanqaadkii masaajid kala ugu daran maalin markii la wada hadlaya waxaa la yiri madaxweynuhu 15 May inaad dhaafaynin masaajidka ka sheegtaa leeyahay yaa dhahaya ajnabiga aan muslimka ahayn hadalka siyaasadda oo hay kulaha hadalka siyaasadda oo ahaa masaajidka ilaahay hadda waxaa dhahay xasan sheekh oo maxay dhigi jireen wixii before and after waa intuu samada fil Soomaali tagay meeqa jeer lahaaya asoo fil Soomaali joogo before and after madaxweyne madax qofka madaxda waxa ugu daran ma taqaanin in qowlkiisa la aamin waayo wax ka xun ma leh adoo madaxa in qowlkaaga la aamin waayo wax ka xun ma laha
waxaa xiran meeshaan aan ku hayaa liis dhalinyaraha hadda khudbadiisa ku jirtay siyaad bare dadku waxay xiri jiray sacdiye macalin bajaaj meeqay xiran tahay bil nimco keef ismaaciil maxamed cabdi yuusuf waa bajaajle cabdi cali ibraahim waa bajaajle axmed xasan cabdi bulshaawi waa nin dhalinyaro ah oo dhaqdhaqaaqda ah cabdi cabdullaahi najiib cali cosable abubakar maxamed xuseen kulligood waa dhalinyaro sharmaarke waxay u xiran yihiin codkaaga maxaa aniga ii dhaliishay u xiran yihiin ninkaasaa wuxuu ku leeyahay doorasho qof coda u socdaa maalin kasta wuxuu la soo istaagaa madaxweyne dhulboobka jooji doorasho qof iyo coda madaxweyne dastuurka aad fujinaysa jooji doorasho qof iyo coda wax kasta haddaa ku qabsata wuxuu ku leeyahay doorasho qof iyo coda waa miiska uu rabo inuu naga hoos galo doorashada qof iyo codkaana taa waaye ta guddoomiye baarlamaanka asagoo guddoomiye baarlamaanka inuu madaxweyne noqonaa lasii ogyahay waay doorashada qof iyo codda maxaa waaye midda kombyuutarka asagoo ku haysta waaye doorasho qof iyo cod maxaa waaye guddiga doorashada asagoo wuxuu u sheegay inay sheegaan waay marka waxaan u baahannahay waxaa la joogaa sidii ninkii dhallinyaradaha meeshaan cabdullaahi uu ka sheegay dhallinyaroy qasab maaha annaga keliya inaa wax naga sugtaan nimanka 13 ah ee keligood guri ku shiray ayagoo dhallinyaro ah ee go-aan ku gaaray gumaysta inay iska qaadaan quwad shisheeye ah dhallinyaray ahaayeen sax maaha marka maalin kasta inaad dad waaweyn ay sugtaan awoodda idinkay ku jirtaa waxayna ku jirtaa tamartiina waqtigiina resource yarkaa haysataan iyo maaragtay xirfadiina inaad midaysaan ay ku jirtaa oo dulmiga iyo heeriyada iyo cadaalad darrada iska qaadaan annaga diyaar inaan horseedno waxaan rabnaa idinka xuquuqdiina iyo xuquuqda ilmaha xashaq inay sanaadaan taasaan u taagannahay annaga idinka inaad fursado heshaan aan aaminsannahay siday fursadaha u helayaan kuwa asaga ku dhow inaad fursadaha u heshaan aan aaminsannahay dalkan waxaan aaminsannahay soomaaliyeed inuu yahay dal la wada leeyahay dadka soomaaliyeed ka dhexeeya qabiil soomaali maaha waxaa lagu leeyahay reer hebela saasa reer hebela inta ka dhacay madaxweynaha wuxuu ku sheekeeyaa maalin walba reer hebela iska celina qabiil hebela laga garba qabana qabiil hebela laga garba duuba qabiil hebela raggan mucaaradka ay u shaqeeyaan reer hebela is haynaa ayaga isma hayno waxaasoo wasiiradiisa iyo kuwa maaragtay cayaanka baraha bulshada anaga xilligii hore ma ogtahay dhalinyaro oo social media ku jirta jireen hadda wasiiradii CBB noqotay dowladda xashaq ee meelaha la taagan yihiin ya dulmiga wuu dhacayaa waana iska qaadaynaa hadduu ilaahay idinka yiraahdo cawaaqib xunaana u damay doonto dulmiga oo geystay hadduu ilaahay yiraahdo waana iska qaadaynaa heriyada dulmiga ma santii